wax dhalanahay beerkii mar walba heer waxa habeenkii markii dadka ay saxdaan kaligay baa banaanka fadhiya waxaan dhii maxaa ku samaysaa haddii meel kale aan la aadaan garanayo waxa kale anaa iskaafin lahaa lidhaha maxamed hilowle waxaan ku noolahay qaxootiga ifo waxa iga xanuunsan wiilkan yar oo arkaysaan wuxuu xanuunkiisa yahay buro maskaxda uga taalo dhaqtiirta ii sheegeen wuxuu sameeyaa habeen iyo maalinba waa madaxuu warfinayaa sidii asagoo madaxiisa waa sidan le madaxuu ahaa hadda gacmihii ku daray oo gacmuhu wareejinaya marka wixii hadda iska daba wareegiisoo dhan hadda wiilkii waxaa la leeyahay habeen ma seexdo maalin ma seexdo mar walba dariska waxay leeyihin war maxamedow maxaa kugu dhacay wiilkan maa dadka u dhex martid annadeedna kolley aabba soomaaliyeed baan ahaa waan iscelinayay ilaa hadda heer waxaan gaaray aan muslimiintii oo dhan ii kiciyaan oo ii dhahaan war wiilkan muslimiinta way u gargaarayaan waa saqiirkan aad arkaysaan xanuunkiisana deedna kolley waxa aniga aan sheegi karo maaha dariska wax uu dhibsado waaye habeen iyo maalin buu u jiifaa waxaana la yidhi lacagta ku baxaysa dhakhtarkiisa waxaa la yidhi $17,000 waxaana haastaa $4,000 keliya muslimiinta meel walba ay joogaan magaca soomaaliyeed iyo muslimiinta dhan meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa si naxariis leh inay wiilkan ii badbaadiyaan oo dhakhtarnimadiisa ilu garab istaagaan si naxariis leh afka aan ku hadlo bini'aadanimo waa aabbo wax dhalanahay beerkii mar walba heer waxa habeenkii markii dadka ay saxdaan kaligay baa banaanka fadhiya waxaan dhii maxaa ku samaysaa haddii meel kale aan la aadaan garanayo waxa kale anaa iskaafin lahaa aad u weyn baan dareema waayo canugaadi oo adaa dhasho beerkaada oo lagu dhahay waxaasaa kaaciga adigana wixii ay haysan karin dhibka ay leedahay waa garan kartaa naxariis le muslimiinta afka aan ku hadlayso walaalayaal dhammaantiin waxaan idinka codsanaya meel walba aad joogtaan inaad wiilkan igu garab istaagtaan waa wiilkaygii waa beer wax dhalaan idinkoo kale ana soomaaliyeed qaxooti joogo $4,000 bes baa tabartayda noqotay meel walba ii dhigtay waan iska soo noqday marka muslimiinta yaa muslimiin waxaan idinka codsanaya inaad wiilkan si naxariis leh igu garab istaagtaan dhammaantiin intay dadka hurdaan oo dhan madaxuu warfinaya ambu ku hayale uu taale sidaa le waa ugu bariyaa maalinta haddii la seexiyo waa sidoo kale habeenkii riinkiisa meel guriga saddexaad waa laga maqli dariska guriga saddexaad baa laga maqlaya xabaadkiisa gacmaha madaxuu ahaa keliya gacmihiina uu ku daray gacmaha iyo lugaha gacmaha uu isdhaafini dhakhtarka wuxuu dhahay buro neerfa ku taallo weeyaan geeska bidixda oga taallo